oo iyagoo geel la jooga silib kulka lagaga gooyay wiilashu waa dhinteen maydkooda 7 bari markii la xulahayay ayagoo kala daatay awr la soo saaray hal aaso wiilkooda adba mar dhacayo Kaaluu bay ka dhacda qisa waliba waxay kugu reebaysaa urku taal waxayna wadataa xanuun dareen naxdin iyo ama kaagle waa dhab in cid walba oo kamid ah bulshada deegaanka xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dawladda iyo ururada mucaaradkii ay ka gaabiyeen dhibaatada jeexdin Gini Bedel Ali waa hooyo 50 jira waxayna ku nooshahay degmada Shiraabo waxa xanuun sida neerfiyo oo kala ah lehna astaamaha madax dilaac qufac badan xanuun margiyada ka hareera indhaha oo adag tahay inay kala furto ay kala kulantay daadinta shirkadda boolijiisa ay u bareertay sunta jeexdin بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحى الله يدعى جين بدل على الدجح وحان ديجان كنوية هاي دجمة الشلاوة قارهان قبلها قرصوني دعوين كدعاء نصام الرهادان ماشان وحيران كشيغو تبعتوين بدن بانو سيدا كنت يكلا سوكولنا هالكن dadka waxaan ahayn iyadoo cidla joogi jiray iyadoo ma aragtay aan wax biya iyo wax baad aynu joogi jiray haddana dhibaatooyin fara badan oo nagu soo gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waanu ka kabano waa ka nool wana aragtaan Kaaluu oo kale anagu jeexnin baan bariga hore dhihi jirnay dhul dalsan oo geel horweynku u daaqo oo heerka aan degino ayna ahaan jirin inuu ma aragtay daaqsaday bay ahaan jirtay hadda laakiin dhibaatooyinkii naga soo gaaray Kaaluu baa loo bixiyay hadda markaan xoogaa ma aragtay aan isbaraarjinayno wala heerkaas Kaaluu noqdo waxaas ugu adkaadaan dhahnaa sayna ugu adkaatay mirihii dhirta ayay suntu dhuh goorisay waxaana deegaanka suubaanka ka idlaaday geedihi ka bixi jireen saraca la cuno sida hobta gomashaaga dhafaruurta iyo xabka waxa kale oo suntu dabar jirtay geedihii dhimbiisha la oran jiray ee ay geelayaariguba ku naaxi jireen sida ay cadeynayaan dadweynaha hareer degan ceelka Kaaluu dadka deegaanku waxay mar walba qabeen inay dhibaato kala kulmi doonaan ceelka jeexdin laakiin waxay iimaanka ku qaboojin jireen inay heli doonaan dheef u dhiganta waxay waayeen hidiiladaasi oo la kuusan jirtay qof walba oo deegaankaasi kamid ah laakiin taas lamay kulmin ee waxay wajaheen dib aan dheef lahayn geedaha xitaa sarca ee lagu noolaa annagu meeshan hadda aan deganahay xaqna waa xiro xun bariga xaqan maxay tooyga baldhacna waa suubaan kan intaan tagno magaalada ka tagno yaanu midhaha keeni jirnay annagoo farqadan wadna oo dadka siin jirnay geeda xabag la dhahan soo guran jirnay hadda male haddaad maanta oo dhan socoto maalin wad baan qabdaar tagay midhii baan ku arkay waxaad moodaa wax cusub inay igu yihiin oo aan arki jiray waan ku soo sasay sababta wadankan ugu mabale hadda 5 sano midha maanaan arag dhulka naga ka baxan sarcana nagu cunaynay oo bay lahayd kumashay lahayd ciid bay lahayd faruur bay lahayd xabag bay lahayd hal hadda kuma hayna caradi meel kale inaan looga imanina hadda waa iska cadda xooluhu geedihii ay cuni jireen dhimbiliilgeeda la dhaho oo geel iyo adhigu uu ku naaxo oo ku dararan waxaa jiri jiray kunraha geedaha ka bixi jiray dhimbiliil la dhaho oo kharaad la dhaho oo xagarka oo xodayga oo markii berigii hore oo aan ku jiri jiray war way xidhaadka mid xidhaadka xoolaha la geeyaa la dhihi jiray dhimbiliilgeed la dhahaa wuxuu ka baxaa qarsaxi iyo haddii ilaahay kuu siman yahay geedahaas oo dhan hal hadda male wax caleen oo geed ka baxaya mooyaan wax sarca oo kale oo geed ka baxa male ku dabcuna iyo ku dunya cunamna waxa weeye nabad guuro badan baa dhacay waxaan weynay dad dunya ayaa naga baabaaday deegaan ayay sunta wadi u biqli waayay hayeeshee nolol maanan helin shaqana looma abuurin intii darawalnimada ku shaqeynaysay iyo xoogsatadii ayaaba iminka laga soo horiyayaa goobaha ay u shaqo tageen ayay ku tiraabayaan dadweynaha jeexdin tabarigii hore waxaan ku sheekayn jiray haddii Kaaluu la furo xooluhuna waa ina dhaafi lacag iyo shaqana waa helaynaa baan dhihi jiray markii aan yaryaraan jirnay carruurta aan ku sheekayn jirnay sida runtii hadda
xoolihiina waana dhaafahayaan dadkii waa naga dhiman hayaa mana hayno shaqo iyo xero lacageed dadkii ka shaqayn hayay ee nalooga kaxeeyay kaaluu ee aan lahayn way soo shaqaaloobayaan waana lagu soo celiyay carradii dad aan la aqoonin oo meel fog iyo galbeed laga keenay baa shaqadii loo furay gabdhaha annagii shaqada loo geeyay waa la soo celiyay wiilashannadii shaqada la geeyay waa la soo celiyay laydinma baahanaa la yidhi sida runtii halkanaa la wada farfadhiya xoolihii oo naga dhammaaday sarcii oo naga dhammaaday iyo waxaa isugu kaana darmaday annagoo shaqo helin China annagu dhibaatadaasu noo geystay ha naga noqdo deeq baanaan ku qabin waanaan ka sugaynin China saa nagu dhaafo China waxaa dhacay oo sheeko ahayn la dhacay oo wax la arkayay oo wiilgeel la joogay ugu yiraana indhaha saaran intuu haan weyn wuxuu yahay halkan oo kala dhigay intuu halkan dhigay oo motor yar wuxuu yahay uu daaray yu wax weyn oo irbadahan wuxuu yahay geedka saa u soo dhamgaasoo motorku ku kiciyay geedkii wuxuu yahay oo balanbaal ah oo dambas ah yaa biday buu yiri haantii geed ini waxay goob joogiye marag u ahayd sun lagu daadiyay laamiga ka bilowda qarsooni siina socday ilaa buurta jaaqdheer oo ay ku yaalaan ceelasha u horeeya ee jeexday aragtideedii sunta kadib waxay dhibana u noqotay xanuunahan ay horay u qaban jirin oo nafsad ahaanna ciriiri geliyay warow la garan waayay waxa ay salka ku hayaan waxaa kale oo ay geli ka warramaysaa qisooyin xanuun badan oo ay la kulantay kadib daadintii sunta oo ay badankood goobjoog u ahayd hadda looba ii joogi jirtay abaartii oo kale say u gashay dhammaanaan saarin way ku gashay mana aanan raadsan karin meel kale nacfi ku yaalana ma lahayn sidii bay looday xirada sayid aniga iga tagtay midda kale anagoo kaaluu dhibkii naga soo gaaray ee abaar lahaa ee dhibaato lahaa ee dil lahaa ee naf iyo maalba inaga tageen lahaa hadda wiilal aanan weedo u ahay oo kale intii la qabsaday baa iyagu geel la jooga silib ku laga gooyay wiilashu waa dhinteen maydkooda 7 bari markii la xulahayay baa iyagoo kala daatay awr la soo saaray hal aaso wiilkooda adba mar dhacay kaaluu bay ka dhacda tii waxaan adigu soo marnay waxay soo ahaan jirtayba jidkii baa la sameeyay annagu hadda anagu ma fuuli karo meeshan adarkaysiin laamiga anigu ma fuuli karo ilaa aan ul qaato amba koorad qaato oo heer gurguurisho ku gaadho mooyaan intaan caadi u fuulo xilliyada badan ma fuuli karo laamigu intuu leeyahay waad aragtaan iyo dhibka ka muuqda haddana maalmaha ka mid ah yaa sun cadna loogu daadiyay suntu waxay tahay maana garanayn wax noo sheegana maana arag annaguna maana aqoon suntii la iyo sanweyna miyaan dhahaa mise waxaan dhahaa yay soo socotay ilaa adigu sanweyne ka soo bilaabatay waxay ku tagtay jaaqdhowr markay maraysaa la xidhay anigiyo suntii anigu waxay tahay aanan garanaynin yaan meeshii maray waa la saaqa halka dhakada xilliyada qaarkood been ma sheegay ilaahay baa igu inaan xanuunka isku arkay baa waxaad moodaa in fur halka laga bixinayo dhakada qof ahdaan dhaho amaan hindis dhaho halka dhakadaad mood fur laga tuurahayo indhahan isku qabsan waxaan mood margeed inta lagu furto halka dhakada aan in fur laga tuurahayo indhahana waxaad mooday in ay isku kay dhagahayaan waxba moodaysaa heesh ahaan ugu soo dhagahayo xanuunkaasaan isku arkay alxamdulillah dhakhtar baan tagay waxba iguma ayna sheegin adiga xoogaa waa iska neerfay dhaheen laakiin xanuunkiisa asaa wali qayba igaga jira badan madaxa tahdaan ka gudubno ma ana aqoon jirin haweenkana intay iska uur yeeshaan bay iska dhali jireen oo nayblas ay tahay oo hadda waxaa dhacda qoftii waa dhig baxaysaa qoftii sankii yaafkii waxaa ka imanaya dhiig gudihii baa dhiig ka furmaya iyadoo dhalmaba joogin waxaa dhacda oo hadda u badan ilmihii qofta in la isla aaso ilma mayda
ayay haweenku dhalayaan foosha ayaa waali u dhowaatay ilmaha saacadun ka hor dhashay ayaa dhiig afku ka dureeraya dhammaan waxaa soo dhibaataha waxaa ka mas'uula sunta loo bareeray ee lagu daadiyey qaybo ka mida deegaanka gaar ahaana dhinaca suubaanka waxaa kaloo jirta gabdha u mulay 3 aqal oo isku xigta oo u malaynaya inayna isbuuc u dhaxaynin yaa 3diiba waxay dhaleen say u foolanayeen loo fool sugayay ilmo walba markii la dhaay ilmihii waa ka nabarka laga gooyo yaa gabdhii waxay geli koomo iyagoo koomo ku jira baa ilmuhu banaanka ka iman ilmuhuna waa meed iyadina ama way raacdo waaba ma 3daas iyagu waa raacday laba gabdhoodna yaa Allah way kaga kacna waxaanu aragnay ilmo dhashay oo dhagaha dhiig ka wada waxaan aragnay ilmo dhashay oo sankii afka dhiig ka wada oo ka wiil waxaan aragnay qof soo u foolanaysay loo korfadhiyo u foolanaysay iyada ilmihiisu qabri la geliyay waxaan aragnay kuwa aan dhalinba oo ciiba dhahinba waxaan aragnay kuwa si waa uur loo lahaa uurba laga waayay oo intuu dhiig fakaday wax ku jiraba la waayay dhibaatada aan waxaan ku aragnay waligan soono konton baan jiraa oo wali ma aanan arag waxa meesha yaala waxa way adaslaan aniga adeerkay aabahay la dhashay baa dhagax uu qabay Allah u naxariista ayada in la deeqo intay suntaas meesha ka dhacday leeyta Allah ayay kaliyahay xanuunhay waxba isaaqay waxay deganeed magaalada dhexdeeda islaanta waxba isaaqay u lahayd oo si u ahayd baan bal islaanta aan soo baano dhakhtarkayna kansar baba hayaalay islaanta waa la qalqalay kow naftiiba halkay kaga baxday wiil mu'adin ahaa oo Cabdullaahi Xasan Durraan oo dhaayada in deeq Xasan Nuur baa la jiray Allah u naxariistay waa la wada ogyahay Cabdullaahi Xasan Durraan Allah u naxariistay waa la ogyahay oo mu'adinka magaalada qarsooni ahaa suntii masaajidka intuu ka adimay iyadoo daabatay uu u yimid oo war waxaan cad waa maxay markuu soo gudbay oo masaajidka magaalada dhexdooda uu maqaaxiyo soo galay wuxuu waa saaqsanahay waxa meesha lagu shubayna sun inuu yahay aanu malayn wuxuu yahay annagu kama aanan wareerna ma cad gaariga ka daadanayo baan islaay Cabdullaahi 3 bari ma waraaqayn Allah u naxariiso sankii iyo afkii buu dhig ka sii daayay nabadgelyo halkii ku tagay waa matal qoflaha hadda dalka haysta ciyaalkiisii oo maxas aha jooga oo agoona xoolamuuna lahayn mu'adin buu ahaa markii bil la joogaba leen mu'adin buu ahaa tiirkii diintu ahaayo baa la dhigi jiray war aynu wax isugu darnaayno dhowrka caruurta u qaamo isaguna nin ka go'an adduunyo ahaa caruurtii noocaas ay way joogtaa qarsooni bay ku nooshaa tii hooyooyinka kansarka ku dhacayna waa maxas waa joogan waa gurigeena ay ku nool yihiin qayb adeerkayba ayaa islaantaasu ay ka dhimatay waxa way dhibaatooyinka qaadada inta suntanu dalka ku daadatay aanu aragnay wax aan ka sheekayn karnaba ma aha xanuun ziyaada ruuxan uu xanuunayn ruuxan madaxa xanuunayn cimiladii waxay nagu noqotay waligeena anagu tuulooyinka aanu joogno kuleel ma lahaan jirin shiraabiya qul baan dhihi jirnay hadda waxa weeye guriyihii waa seexan weyn oo banaankaas aan habeen walba daadsanna waa cimilada hadda aanu aragnay dhowr bilood isku soo wareegay waxa weeyaan hada waa yahay dibku hanagu dhacay hadaanu dheef qabno mukayf iyo mara waxadi iyo lacag iyo aduun iyo aan helayno waxba nagama dhaceen xooluhu hana dhaafaan cimilada hanagu kululaato oo haweenku hadintaan wuxuu nooladuun nolol rajo ka muuqateen rajo nololeedna ma haysano adduunyadina halkaas maraysa dadna halkaas marayaan anagu hadda waxaan isleenahay fikrahan markii la fiirfiiriyay odayadii iyo dadka aqliga lahaa wax inooga horeeyay shayna iyo shaqadiisa iyo soo galkiisa midna ma jiro sheena dhibaatadaas noo geystay sheena haduu geedihiina naga qalajiyay dhulkiina naga suneeyay shaqadiina noo diiday haddii aan noolaanin oo baa meesha taala anagu sheena marka saan nagu dhaafo daanu dawlad haysano macnaha ka hadasha oo dawladnimadu ay dadkooda wax ku falayso sheenahana laga karooso wax khayr qaba oo barakaysan Allah noogu bedelo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan soo saaray duubay iskuna dubariday mahadiya ka gaadhay deeq hay'aydid waxa qayb weyn ka qaatay xadiis xasan baaruud waxa isku hagaajiyay liibaan weyr xumar inta aan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waa dhamaantayo idin leh cod u noqda dadka codkooda la iska dhagatay